Elizabeth Smart ayaa ku jirtay gacanta afduubtaha kadib markii la soo afduubtay iyadoo 14 jir ah sanadkii 2002 iyadoo kufsi joogto ah kala kulmaysa afduubtaha iyo inuu siiyo daroogooyin aad u badan ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. subscribe sar channelka, like na sar muuqaalka, lana wadaag asxaabtaada. Elizabeth Smart waxay ku dhalatay kaniisad ku taal magaalada Lake City. Smart waxay ahayd unug naxariis badan, xishood badan oo waalidkeed adeecda. Waxay aad u jecleed ciyaarta muusikada, taas oo ay ku bilowday iyadoo 5 sano jir ah, iyadoo tababar saacad ah maalin kasta sameynaysa. Markii ay gaadhay dugsiga dhexe, waxaa looga yeeray aroosyada si ay uga ciyaarto, waxayna si joogto ah uga qayb qaadatay riwaayadda sanadlaha ah magaalada ay degan yihiin. June 4 sanadkii 2002 Smart iyo qoyskeedu waxay ka qayb galayeen xaflad abaalmarineed oo lagu qabtay iskoolkeedii. Smart waxay ahayd 14 jirka ku guuleystay abaalmarino dhowr ah, laakiin nasiib darro waa berigii abbaaro 3 habeenimo ama 10 habeenimo. Smart waxay ku toostay dhawaqa iyo shanqadha qof hoos ugu leh, waxaan qoortada ku hayay mindi. Sariirta ka kaca oo soo raac, haddii kale waa idin dilaya adiga iyo qoyskaagaba. Afduubaha oo ah qof aan ah lagu magacaabo Prince David wuxuu Smart ka soo kaxeeyay guriga isagoo socod dheer oo saacado qaatay kula socday kaynta ilaa xer ay ku sugaysay xaaskiisa Winda Barsi. David wuxuu rumaysnaa inuu yahay nabi la yiraahdo Emmanuel. David Smart wuxuu kufsanayay maalin kasta ama maalinkiiba dhowr mar, waxayna ku xireen geed, waxayna ku khasbeen inay isticmaasho daroogo iyo khamri aad u tiro badan, mana quudin jirin. David wuxuu isku dayay inuu Smart ka dhaadhiciyo caqiidadiisa cusub iyo diintiisa iyo inuu yahay nebi. Sabixinta Smart waxay bilaabantay bishii Febraayo sanadkii 2003 oo Smart walaashid ka yar Mary oo habeenkii afduubku dhacay waxay wada hurdeen hal qol, laakiin Mary iyo Smart waxay ku kala hurdeen 2 sariir oo kala durugsan. Markii afduubku dhacay, Mary waxay isku dayday inay isqariso iyadoo cabsanaysa oo aan waxba ka qaban karin walaasheed waxa ku dhacaya. bilood kadib, Mary waxay si lama filaan ah u sheegtay in afduubtuhu ekaa nin la oran jiray Emmanuel oo mar hore gurigooda ka shaqayn jiray oo gacan yara ka ahaa. Booliisku waxay ogaadeen in Emmanuel yahay David. sidaas ayaa lagu baahiyay sawirka afduubtaha oo qofkii arka inuu soo waco booliiska. Maalinkii ay ahayd taariikhdu 13 Maarso sanadkii 2003 ayaa nin wadada maraya ku aqoonsaday David oo la socda Smart oo xinaatimo buruka ah iyo muraayadaha indhaha. ninkiina si degdeg ah ayuu u wacay booliis, waxaana la xiray David iyo xaaskiisa. waxayna soo badbaadiyeen Smart oo dib lagu soo celiyay qoyskeeda, ayna dib u heshay xorriyaddeeda. waxaa bilaabantay dacwad oogidda David, wayna sii dheeraatay muddo sanado ah, wayna adkaatay in maxkamad la soo taago maskaxan inuusan caafimaad qabin awgeed. dambeyntiina December 10 sanadkii 2010 soo taagay maxkamad iyadoo lagu eedeeyay dhammaan afduubkii dhacay 8 sano ee la soo dhaafay. qiimo badan oo loo soo bandhigay maxkamadda magaalada Salt Lake waxaa David ku cadaatay dembi afduub carruurta ah ujeeddo galmo awgeed. wuxuu xukumay xabsi daa'im, sidaas oo kale xaaskiisa waxaa lagu xukumay 15 sano. Smart markii ay xorriyaddeeda heshay waxay dib u bilowday nolosheedii iyo waxbarashadeedii iyadoo dib ugu laabatay iskoolkeedii. inay ka qalin jabisay dugsigii sare 2006 waxayna ku biirtay jaamacadda Brigham Young si ay uga barato kulliyadda muusikada. intaa kadib waxay noqotay u dhaqdhaqaaqe sida wakiilka ah badbaadinta carruurta afduubka loo haysto iyo kufsiga lagula kaco carruurtaas. waxay gacan ka geysatay dejinta xeerka afduubka ee dalka Mareykanka sanadkii 2008. Smart waxay u guurtay Paris sanadkii 2009. sanadkii 2011 Smart waxay aasaastay hay'adda Elizabeth Smart Foundation, taasoo ujeedkeedu yahay taageeridda carruurta iyo qoysaska dhibaataysan. isla sanadkaas waxaa loo magacaabay wariye gaar ah oo ka tirsan ABC News si ay uga warbixiso dadka la la'yahay iyo kiisaska afduubka carruurta, waxayna noqotay qoraa ay aad u jecel yihiin bulshadeedu.
waxayna Paris kula kulantay Mithow oo isaguna u dhashay dalka Scotland. isbarasho kadib waxay ku heshiiyeen inay isguursadaan, waxayna isku guursadeen Hawaii. muddo kadib waxa uu dhashay 2 cunug. bishii Oktoobar sanadkii 2013 Smart waxay soo saartay buug ciwaankiisu yahay My Story oo ay ku muujinayso dhibaatooyinkii foosha xumaa ay kala kulantay afduubihii. hadda waxay ka tirsan tahay wakaaladda wararka ee AB. ugu dambeyntii waxaynu soo gaarnay dhammaadkii qisada. haddaba daawade waxaynu kaaga mahadcelinaynaa sidii quruxda badneyd aad noola socotay. subscribe saar channelka, like na saar muuqaalka oo la wadaag asxaabtaada oo na dhiirigeli.